qoysaskan Soomaaliyeed oo leh dhulal dukumentiyo sharci ah ay u haystaan ee soo baxay sanadkii 1985 ayaa ka cabanaya dhul boob xoogan ee ka dhana dhulalkooda. Hooyo Asli Colaad Cilmi ayaa shaaca ka qaaday in muddo 3 cisho kaliya loo qabtay in ay ku baneeyaan dadkaasi rayidka ah guryahooda oo si sharci ah ay ku degan yihiin. waxaan ka cabanaynaa waxaan deganahay dhul sharciya oo 85 ah sharcigiisu yahay aan deganahay maalin maalmaha kamida ayaa waxaan noo yimid tignika iyo ciidan wada socda markaas ka bacdi waana dileen aniga waa idileen waa xireen wiilkayga iyo wiil kale oo dariskaana way xireen waana dileen warqadihii nagula jabiyay oo amarka lagu siiyay gudoomiyaha ayaguna waa kuwaas 3 beri aan noola qabtay waxa kale oo noola qabtay in si sharciga ay doonaan ay noogu tuntaan waana la dilay sharcigeeni iyo waraaqihii nagula dilana waa kuwaas. dhinaceeda hooyo Faadumo Maxamuud Cigaal ayaa hoosta ka xariiqday in qoysaskaas iska leh dhulalkaasi dadka rayidka laga rarayo ay yihiin kuwa aan waxba galabsan ee xoog loogu sheeganayo xasaanada dawladda loona baahan yahay in arintooda wax laga qabto sida ay tiri. horta waxaana dulmiyay dadaan allana ka cabsayn annagana naga xoog badan nagana xoolo badan ayaana dulmiyay ninka la yiraahdo reer geelow iyo reer arbush intii aqli leh oo wax isku yihiin waxay soo wateen nin la yiraahdo Cali Taranta oo ayuga ilma adeer ay yihiin dhulka nagiyow qalaama fogay meelan sida inuu jib ku cabiray wuxuu yeelay gudoomiyuhu warqad aad arki doontiin oo internetka ku taalo oo annaga codkanaga annagu ma aanan qorin gudoomiyuhu saxiixiisa waa yaqaana ninka la yiraahdo biliis kuro waa yaqaana saxiixiisa ninka la leeyahay maxay ahayd Bashiir waana dileen waana tijabiyeen gabadhayday garaaceen gabadhayday jiideen gabadhayday dharka ka fiiqeen. ugu dambeyn Maxamuud Maxamed Cali oo ka mid ah qoysaskaasi Soomaaliyeed ee dhulkooda la boobayo ayaa ka codsaday dawladda cusub in ay wax ka qabato cabashadooda ku saabsan boobka aan loo meeldayin ee lagu hayo dhulkooda ay ku leeyihiin duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. dawladda oo Maxamed Abdullaahi Farmaajo madaxda ka yahay waxaan ka codsanaynaa boobkaas iyo dhulkaas oo nalaga boobayo iyo boobka iyo awoodda loo sheeganayo inuu soo farageliyo in maxkamad arrintanada maxkamad lama geyn oo dad kale looma geyn awood baa loo sheeganayaa awooddaas in laga qabtaan oo rabnaa dhulkanaga annaga iskale waa deganahay cagaf baa la gelinayaa baa la yiri 3 beri baa naloo qabtay intaan dacwada ku jirnay hadda 10 beri bay maraysaa intaasaan uga cabanaynaa dawladda cusub inay soo farageliso. boobkan qaawan ayaa la sheegay in ay iska kaashanayaan qoysas ay ugu horeeyaan reer Geelow iyo reer Arbush oo ah qoysas walaalaha isla markaana isku gaashan buraysanaya dhaca iyo boobka hantida dad kale xilli uu ku gacan siinayo dhaca qoysaskaasi dhulalka dadka danyarta ay leeyihiin in magaciisa lagu sheegay Cali Taranta oo la ilma adeer ah boobayaasha dhulalkaasi. tani ayaa qayb ka falalka looga fadhiyo in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dawladdiisa cusub ay soo farageliso si wax looga qabto maadaama ay tahay boob aan loo meeldayin oo ka dhan ah dadka rayidka ah ee loogu tagrifalayo awoodda dawladda weliba iyagoo haysta dukumentiyo sharci ah.